salaamaynaa marka koowaad marka labaadna waxayna kaga mahad celinaynaa inaad soo ajiibteen kulankeenii caaway waa mahadsantihiin waxaan rabnaa inaan wax yar inii dulmarno ujeedada xalfadan caawa aan ugu talagalnay hotel royal plaza xarag jarkiisii hore qaybta jiifka iyo restaurantiga hadda ka hor bay horey u dhacday caawa waxaan rabnaa ajendaha iyagu noqdo hoolka iyo qaybtan gaardinka aan u talagalnay inay maaragtay dadku hawada ku qaataan ama ay ku nastaan inaan caawa xarig jarno royal waa hotel ku soo kordhay degmada Galdogob sida aad u jeedaan ama maaragtay aad ogtihiinba wuxuu ka kooban yahay ama awalba ka koobnaa kowdii u horeysay qaybihii jiifka maqaaxidii waxaan aragnay in baahi weyn loo qabo hotelkan caawa ama hoolkan caawa aad arkaysaan oo in badan lagu celceliyay hotelka waxa ka dhiman hoolkii shirarka kadibna waxaan doorbidnay inaan hoolkan ku darno shaqaalaha meesha hadda aan keeno ka shaqeynaya waxaan ka soo kala qaadanay koonfur galbeed galmudug iyo puntland waxaan rabnaa hoolkan inaan ku ballan qaadno laba waxyaalood nabadoonnada waxaan siinaynaa insha Allah bilkariin mar walba ay shirarka nabadda uga shaqeynayaan inuu hoolku yahay free waxa la wixii horumar ah ee degmada Galdogob loogu qabanayo waxa la wixii horumar ah oo degmada Galdogob lagu qabanayo haday noqoto nabadda haday noqoto horumarka waa u free insha Allah bilkariim waxaan leenahay nabadoonayaal hoolka idinka iskale deegaanka iskale ku soo dhawaada dhalinyarada waxaan leenahay arooska koowaad oo u horeeyo hotelku waa free qofkii ka faa'iideysanaya waxaan leenahay dhalinyaradana ayaguna doorkaasi leeyihiin insha Allah bilkariim soo dhawaada hotel Royal Plaza saddex habeen baan deganayo ganacsadaha guud oo reer Puntland oo xagga ka yimid baa boosaaso aad baan ugu riyaaqay servicekiisi waxaan rabnaa markaad Galdogob timaadid oo magaceeda lagu sheego inuu kugu soo dhaco Royal Plaza iyo maqaayada oo kala kacsan iyo hoolkeedii waxaan aad ugu mahad celinayaa shaqaalaha hotelka oo aad iyo aad maaragtay servicekooda u fiican yahay annaga idin tijaabinay lagu soo dhawaado hotelkaas oo maalka badan galay maalka badan meesha la gelinayna nin geesiye iyo nin karti leh baa geliya waxaan leenahay mar kastaba wixiisa Allah barakeeyo degmadu waa u baahan tahay dadka la khayrka ah oo ama dibadda jooga ama dalka jooga waxaan leenahay degmada Galdogob horumarinta waa geedaaya si hadii Allah idmo guryaha quruxda badan oo isku masawiraysaan ka dhistay idinkuna deegaankiinii waa meel istiraatiiji oo Soomaaliya iyo Itoobiya isku xirta ama Puntland iyo kililka shanaad isugu xirta waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ba soo dhawaada runtii dadaal weyn ayuu sameeyay oo intii la sheegay ragiga horeeyay Xuseen qofku markuu galiyo lacagtiisa meel uusan islahayn ama ay u muuqatay inay ka soo baxayn ribaxa lacagta gashay uu degdeg uga soo baxayn waa heel yaa la oran karaa runtii marka deegaanku u heeliyay ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu adduuniya aakhiraba uu nacfisado nin iimaan qabaa dhistay hantidiisii galiyo ku dayasho mudan in muxuu ahaayeeto oo lagu daydo oo sidoo Cabdullaahi Yuusuf sameeyay la sameeyo imisa hadda ka shaqeyso oo ku nool shaqaalaha midkaan oo kale ninkii dhisa ugu yaraan 20 qof buu shaqaaleeyay soo wadankii wax uma qaban waxba uu qabto marka waxaan leeyahay lagu daydo rabaa inaan u mahad celiyo ganacsatadii ugu horeeyay mudan Cabdullaahi Yuusuf oo ku dhiiriday inay meeshaan hotelkan ka maalgashaan sababtoo qofka ganacsadaha ah mar walba khasaaro gali kara marka qaarkood laakiin qofka ka faa'iideystaha oo anagoo kala ah mar walba wax laga yaabo inuu soo khasaaro u sagalin marka mar walba waxa mudan qofka ganacsadaha ah waa geesi marka qaarkood waa ku khasaaraya marna wuxuu noqonayaa uu ka faa'iideeyaa marka ragga waxaan filayaa halkan barnaamijkan waxeeyay hotelkan hore u furay haddana furay hoolkaani inay geesiyaal ahaayeen ku dhiiriday meel khatar ah laakiin hadda waxaan rajaynayaa insha Allah inay ka faa'iidi doonaan oo ay ka faa'iidi doonaan meeshay degmadoodii iyo deegaankoodii ay maal galiyeen sababtoo ah deegaanka waxay u tahay qurux iyo bilic iyo dadka yimaadahay meel ku soo dhiran sababtoo qofka hadda maanta yimaadahay meel uu imaan karo bay Galdogob leedahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan caawa ka soo qayb galo mar labaad munaasabad labaad oo ka dhacaysa isla hotel Royal Plaza Galdogob
oo runtii awalkii horena aan ka soo qayb galnay muddo dhowr bil ka hor ah dhismaha hoteelka furitaankiisii qaybta jiifka iyo restaurantiga caawana aan shaahid ka nahay oo ka soo qayb galayno furitaanka howlkan quruxda badan oo loogu talagalay bulshadu inay shirarkooda iyo xafladahooda iyo aroosyadooda ay ku qabsadaan aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa mulkiilaha hoteelkan ganacsade adeer cabdullaahi yuusuf oo runtii hanti aad iyo aad u badan geliyey deegaankiisa iyo degmadiisa aan isleeyahay ujeedka ugu weyn dhaqaale raadin ma ahayna waxay ahayd inuu bulshadan u daneeyo oo bulshadan ay ka faa'iidaystaan oo bilicda magaaladan uu ka qayb qaato oo ganacsiga magaaladan uu ka qayb qaato oo dhaqaalaha iyo horumarka degmadan uu ka qayb qaato waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu xoolihiisa iyo maskaxdiisa iyo maalkiisa u barakeeyo